taariikh nololeedkii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ahaa madaxweynihii sagaalaad ee soo mara xukunka oo aan soo kookoobay ayaan halkan ku soo qaadan doonaa aniguna waa libaax barqiye. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1962 waxbarashadiisii dugsiga hoose waxa uu ku qaatay dugsigii kowda luulyo halka uu dugsiga dhexe ku qaatay Maxamuud Xarbi kadib markii uu u wareegay dugsigii sare ee farsamada gacanta. madaxweyne farmaajo waxa uu shaqo ka bilaabay wasaaradii arrimaha dibadda waaxda lacagta maamulka iyo arkafiya sanadku markuu ahaa 1981 isaga oo markii dambe noqday xoghayaha labaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka laga soo bilaabo 1985 ilaa 1989. intii uu haddaba xilkaasi hayay waxa uu ka qalin jabiyay State University of New York oo ku taala magaalada Buffalo isagoo ku takhasusay taariikhda. sanadku markuu ahaa 1993 kadib isla jaamacadaas ayuu ka qaatay masterka sanada kadib. inkasta oo uu waxbarasho ku jiray madaxweyne farmaajo waxa uu suurta gashay in uu ka mid noqdo golihii dhexe ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka sanadkii 1994 mar kale waxa uu noqday commissioner arrimaha guryaha ah ee Buffalo City isaga oo ahaa 1994 ilaa 1997 muddo yar kadib waxa uu noqday xiriiriyaha State of New York qaybta arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay. isaga oo xilkaasi hayay in muddo ah maxamed cabdilaahi farmaajo 2010 ayaa loo doortay ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya dawladii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheekh Shariif. inkasta oo uu xilka hayay muddo gaaban si weyn waxa uu caan ugu noqday dadaaladii uu ku sameeyay tayeynta ciidamada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. haddaba heshiiskii Kampala ee dhexmaray madaxda sare ee dawladda ayaa sababay in uu xilka iska casilo 19 Juun 2011. farmaajo ayaa mar kale soo ifbaxay sanadkii 2017 isaga oo ku guuleystay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya. intii uu haddaba xilka hayay waxa uu dhidibada u taagay dib u dhiskii ciidamada, xoojintii xiriirka dalalka sida Turkiga iyo Qatar iyo dalal kale oo badan. hase yeeshee hogaankiisii waxaa hareeyay khilaafyo siyaasadeed oo culus oo u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedada iyada oo sidoo kale lagu eedeeyay in uu isku dayayo in uu xoojinayo awoodda xukuumadda dhexe si uu u adkeeyo midnimada Soomaaliya. haddaba waqtigii xilka uu ku sugnaa ayaa ku soo gabagaboobay maran muddo dheer socday oo ka dhashay dib u dhac ku yimid doorashadii guud ee dalka taas oo keentay dagaalo yaryar oo ka dhacay Muqdisho. 15 May 2022 farmaajo ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo noqday madaxweynihii sagaalaad ee si nabad ah xilka ugu wareejiya madaxweyne kale taariikhda Soomaaliya tan iyo burburkii dawladii dhexe ee 1991. maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadda door siyaasadeed ku leh mucaaradka ayaa la filayaa in uu door muuqda ku yeesho siyaasadda Soomaaliya ee soo socota iyada oo ay jiraan saadaalo ku saabsan in uu mar kale u tartami doono doorashooyinka soo socda.